gudoomiyaha hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka Cabdikariin Axmed Maxamed Xinif ayaa sheegay inay ku guuleysteen in dalkooda hooyo ay dib ugu soo laabtaan boqolaal dhalinyaro ah oo dalka ka tahriibay xilliyo kala duwan. Gudoomiyaha arintaasi ka hadlayay waxa uu sheegay in aan dhalinyarada la soo celiyay halkii aanay kaga hadhin isla markaana ay u sameeyeen ganacsiyo iyo shaqo abuur kala duwan kuwaas oo ka shaqeysta gobolada iyo degmooyinka dalka Soomaaliland oo dhan. Waxaanu guubaabiyay dhalinyaradu in ay ku hamiyaan in aanay ku hamiyin tahriibka isla markaana ay dalkooda aaminaan kana shaqeystaan. matrida guud ee Liibiya laga soo celiyay waxa weeyaan guud ahaanba sanadkan iyo sanadkii hore waa 350 qof weeyo dhalinyaro badan aan ku talagalay anagoo kaashanayna ama wada shaqeynayna hay'adda IOM qaabilsan socdaalka shirkadda quruumaha dhaxaysa oo qaabilsan dadka in loo sameeyo meherado ganacsi sida dukaamo iyo cafeteria qaar loo iibiyo gaadiid qaarna loo sameeyo xoolo loo iibiyo hadba wax iyagu ay codsadaan ay doonaan marka boqolada arkaysan waa meherado loo sameeyay iyo gaadiidkii loo iibiyo qaarkood waa 140 kamid ah ilaa imanka hawsha loo qabtay 210 kalena processka ku jiraan oo iyana hawshooda wada dhameystiray hadii la ka dhigo waa dhiirigelin dadku inay wadankooda aaminaan ama dhalinyarada wadankeeda ay aaminto weeye waxa kale oo kulliba aanu codsi qori doonaa hadii la ka dhigo madaxweynaha qaranka oo runtii aad iyo aad u daneynaya dadka la soo celiyay dhalinyarada ah in bal iyagana loo qoondeeyo shaqaalaha dawladda wax kamid ah in lagu daro حتى حد ciidamada doonaysan ciidamada in la qoro ciidamada kala duwan waa codsan madaxweynaha u gudbin doona wali uma gudbin insha Allah waan rajeynaa inuu naga aqbali doono sida waxyaalo hore fara badan naga aqbalay waa dib u dejin loo sameeyo dadka weeye marka muuqaalada kala duwan aad arkaysaana waxyaalaha cadeynaya adeegyada loo qabtay. gudoomiyaha hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya ay cadaadis saaraan dhalinyarada ka soo jeeda Soomaaliland iyaga oo mar walba dib u dhiga duulimaadyada ay ku imanayaan Hargeysa. waxa kale oo uu sheegay in aanay Soomaaliland ka aarsanaynin Soomaaliya maadaama ay Soomaaliland ka soo degeen dad qaxoonti Soomaali ah isla markaana ay si sharaf iyo karaamo leh ugu soo dhaweeyaan dadka kala duwan ee qaxoontiga ah. marka dhibaato ka haysata dhalinyarada Liibiya ka soo noqonaysa safaaradda Soomaalidu ay ku leedahay Liibiya safaaraduna waxyaalaha wax badan ba wali Soomaaliya iska keen xiran oo ayna ku kala bixin oo waxyaalaha laga wada hadlaya kamid tahay marka dhalinyaradu u sheegaan inay ku noqonayaan Soomaaliland ama Hargeysa ay tagayaan hadiya jeer ama way celiyaan ama dib u dhigaan oo qaar xamar tagayay soo horumariyaan waan ka codsan lahayn waxyaalaha qaarkood dad dhibaataysan lagama argoosto lama culaadiyay dhalinyaradu si wixii idin yimaada inaad ay Soomaaliland ma tagina in aad soo dirtaan oo aydan siyaasadayn aad iyo aad baan u jecelahay halkan ba waxa jira dad fara badan oo Soomaaliya oo Yemen ka yimaada oo berbere ka soo dega oo si nabadgelyo aan u soo gudbino airportka diyaarad laga soo saaro haddaanu siyaasadeynayno runtii way noo fududahay Soomaaliland way u fududahay hadday siyaasadeynayso oo bani aadamnimada aanay qiimeynaynin way u fududahay inay hay'adaha soo qaadi yiraahdaan xamar geeya al soo marin halkan meel kale geeya ama boosas geeya ama xamar geeya laakiin bani aadamnimada iyo dadnimada iyo insaaniyada iyo diinta iyo dhaqanka oo dhan ayaa waxa diidaya in dad dhibaataysan oo dagaal ka cararaya ama mashaakil kale ka cararaya la siyaasadeeyo arinteeda cid ogolaan karta runtii ma jirto. geesta kale mar warbaahintu wax ka weydiisay dhalinyarada dalka dib ugu soo laabtay ee hal abuurka ganacsi sameeyay waxa ay sheegeen in ay dhibaatadii ugu weyneed ee soo gaadhay ee taariibiyaasha markii ay ahaayeen lagula kacay sida jirdilka furashada dhaqaale iyo xabsiyada ay magafayaashu ku hayeen ay kaga soo kabteen ganacsiyada yaryar iyo shaqo abuurka ay u sameysay dawladda Soomaaliland. maanta shaqo abuurka noo sameeyay alxamdulillah rabbil caalamiin dawaanaga maanta kaalinta ku jirnaa shaqaysanana insha Allah horumar saa ka sii ballaaranayna ka galan doonaa waxaan ku talinayaa dalkiin hooyo ku soo noqdaa iska shaqaysta dalka hooyo aamina anuu imika markaa hay'adii way soo celisay baabuurkaas iibisay oo ku shaqaystaa dhalinyaradana waxaan kula talin lahaa inay ciidooda aaminaan iyo dalkooda marta waxaan leeyahay marka wada Ilaahay waa mahad kale marka labaadna dawladeena iyo xukuumadeena dhalinyartaan waxaan ay laga soo ceshay dalka Liibiya ee dalkooda timid wallahi alxamdulillah ma sha Allah dalkayga markaan midna farqabsimo fara badan baa leeno sameeyay meheradaha noocan oo kale ayaana noo furay alxamdulillah dhalinyarta dhibaataysan joogta dalkiina waxaan jeclahay inay la soo laabato marka hore dhalinyarta waxaan furay dhalinyarta waxaan laga soo celiyay wadanka Magaalada Liibiya waxaan soo meherado furtay garanaysa in
aan dee nafteyda iyo magaranaysaa ku anfaco iyo noloshayda mustaqbalkayga marka waxaan ku hami weynaa in magaranaysaa waxyaalo badan wadamo badan kusoo arkay inaan magaranaysaa waddankayga uga faa'iideeyo oo markaa shaqadii magaranaysaa xaggaa ka doonan lahaa in waddankayga dhexdiisa ka qabsado ayaan meherada uga furtay waayo waxay maalgelinaya magaranaysaa oo dee garab taagnaa hay-adda iyo magaranaysaa iyo dowladda isku jira wada socdo mar walba